komishinka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale saddex musharax ee ku tartamay madaxtinimada qaranka Soomaaliland ayaa maanta kulan ay albaabadu xiran yihiin waxay ku yeesheen xarunta komishinka doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaanay kaga wada hadleen sidii loo dhowri lahaa sharafta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii fariimo iswan loogu diri lahaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u dhowraan xasiloonida doorashada. Musharaxiinta ayaa markii kulankaasi u soo idlaaday goreyntii halkaasi waxa ka hadlay afayeenka komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland sidoo kale gudoomiyaha komishinka. muwaadin xaq dastuuri aad u leedahay inaad doorato madaxweynihii mustaqbalka ee wadankan xukumi lahaa 5 sanadood ee soo socota. saddexda xubnood ee barbar taagan midkood buu noqonayaa. kursigu laba maaha waa hal kursi. waynu u hambalyeeynaa waynu ku boorinaynaa labada xubnood ee kalena waxaanu ka codsanaynaa inay u hambaleeyaan xubinta soo baxda ee safka gelaya ee kaarkooda wata marka ay goobta imanayaan amaba ay guryahooda ka soo baxayaan in aanay soo xidhan wax calaamad ah oo xisbi saddexda xisbi calaamadahooda qof sita ama koofiyad ha ahaato ama shaar ha ahaato ama wax kastaba ha ahaatee lama ogola in goobta codaynta lala yimaado. geesta kale waxa halkaasi ka hadlay saddexda musharax ee madaxtinimada Soomaaliland ku tartamay waxaana kamid ah hadaladoodii. inta ku darayaan way dhamaatay anaga tartankii u dhamaaday 10kii xalay bisha 10keeda u dambeysay 6 xalayto waxno wixii tartankii iyo ficilkii wadabadan dhignay hadda waxaan nahay isku mid baan nahay warsiim inaan sharafta dalka ka horeysana wax kastaba marka anagu هو يمنهن توتيه فاملي بابنا سومالي وفاملي ما قالت تاسك وقاله ترتك وما قالينا إيران دلك وحيالنا إيران هرمر نبر دورين مدولي بقى تبتها لوك الدوية ورسالة في عني رسالة في عمان نسقاها أيال الدوية علم اللي هنا رك صاحبان ضد إن بس هو شقيبان صدق توك سراج شان توك سراج حسبي ترين صدق هو تاجنا قولنا اللي لبضنا نبغى بها هايرو labada doorasho hore ee dhaceen labada u cid baa rag dul qaatay ee qaranka dhisay haanay inuu waa xaq doorashadii dowladda sarki soo marway dhaatay baday rag looga baqda ma intaaba xisbaan ku jiro ragta wada dalkooda horumar doonayaan marka waanada badan ee dal soo jeeray bawliga saddex leeyahay nama qabato nin walba naga tar walax jecel badan ninna tan oo waanin maayo ninna tan dhibaatada noo sheegi maayo ninna intaan uu soo marin ninna dareen kan uu qabno ma qabo marka waanada ay farta ku goontay cid aan dan kale aynu waaninaysana ma geeyno saddex xibka ayna wax tartan dambe naga dhaxeeya saddexdayada ma jiro go'aanka shacbiga leh 13 November go'aanka shacbiga leh cidda doorataan baa madaxweyne dalkan ka noqonaysa xisbiga dooraha noqon marka go'aankana shacbiga leh taana ogsoonaado anaga waa naga wareegtay awoodiyo go'aan shacbiga geesta kale musharaxiintu waxay fariin adag u digniin u direen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyagoo ugu baaqay inay soo faragashaan doorashooyinka madaxtooyada ee dalkan Soomaaliland ka qabsamay 13 bishani. doorashada ku dhawaaqdaan waa qashqashina hadda waxaan ku jirnaa doorasho laakiin waxa ogaadaan haddii aydun nabad istirahaan ka qasa nidaamka iyo doorashooyinka marka naga dhamaato doorashadu waa dila xisaabtamina ma iloobino annagu nabad baan rabnaa idin soo faragelinayno walaaltinimada jecelahay in nabad ku wadano jecelahay laakiin waxaan u sheegaynaa maanta doorashada hadda soo faragelisaan oo hab ciidan ku soo faragelisaan geeska wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu murmay caasimadda lagu murmay ballan baan taadi ka qaaday hadda soo faragelisaan Soomaaliland xaq bay u leedahay inay doorashadeedana daafacdo si nabadgelyo ku dhacdo إن الدلك يحدث كنا دافعنا حق الأولاد لكن مرة واحد كون رئيسيننا درس هناك يشار نمو هذا هالكاس هو ضافته سمعنا حق الأولاد هنا الدلك دافعه أنا وباغينا مرة بعض إن أنا أرين تاسينا بوفر جرين وحيد خسارة كي مدنا عندي قرد هذا سمايسي أي قاعدة ضمطة وخالد بكيلي فقانا ركو حرطة ستار تي في هرقيسة.